waxaa maanta aynu madaarka diyaaradaha cadde muqdisho ku soo dhaweynay 10 kamida maxaabiista inagaga xidhan wadanka Liibiya oo madaxweynuhu amray in laga hawl galo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku dhiban Liibiya oo ay xabsiyada ku jira ama qolyaha makafayaasha loo yiraahdo yaqaana ay haystaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amar cad ku bixiyay ambassador keena Europe Fiqi iyo Maryan oo wakiilka gaarka arrimaha migration ka ah ayaa ka hawl galay waxaynu maanta ku guuleysanay 10 xubnood oo kamid ah oo qoys iyo isugu jira ashxaas kale laga soo kaxeeyo laga soo furto alxamdulillah rabbil caalamiin si nabadgelyo ahna ay u yimaadaan dhulkoodii hooyo ku soo noqdaan waxay tani barbar socotaa qaybna ka tahay ballanqaadadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sameeyay ee ahaa in uu gurmad u fudin doono shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan daafaha dunida wallahi Liibiya waxaan soo galay markay ahayd bishii shanaad iyo labadeedii ayaan soo galay Liibiya marka niyo Liibiya way iska dhib badan tahay horta magaalooyin badan ayaa dhalinyarada lagu haystaa niyo dhalinyaro saaxiibada iyo hadda Ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha sida aniga wiil bustahil uu jiro kale Allah oo naxariistay uu dhintay wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafa uu garaacay sankii afku dhiga keenay gabadh kale bishaaro la yiraahdo reegaalka ayaa ay dhimatay waxay u dhimatay jugta ay ugu geysanayeen ninka magafa maadaama uu meesha salaada subax baa la istoosiyaa salaada subax inta la istoosiyay ayaa waxa la garanka waa laga siibiyaa xataa dumarka laakiin iyaga laga misi dharka